بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa axmed samo maxamed. kusoo dhawaada Samo Tech. cashirkan hadduu ilaah yiraahdo waxaan uga hadli doonaa vector. marka waa maxay vector? vector waa sequence container class kaas oo la mid ah sida array-do kale oo ku keedinaya multiple values laakiin isku type ah ama isku nooc ah. wuxuu laakiin array-da kaga duwan yahay uuna kaga fiican yahay in array-da size-keeda waa static oo runtime-ka mar haddii value ay qaadato isma bedelayso, laakiin vector-ka wuu isbedelayaa. size-kii uu ahaa ayuu markasta wuxuu ku sameynayaa double haddii vector-kaada uu buuxsamo, laakiin array-da haddii mar ay buuxsanto value kale ma qaadanayso. sidoo kale waxay uga fiican tahay array-da waxaa sameyn kartaa insertion oo meesha aad rabta ah oo adigoo sheegaya position-ka aad rabtid in value aad geliso. sidoo kale waxaad si fudud kusoo celin kartaa adigoo isticmaalayo built-in functionska value-ha ugu dambeeya ama kan ugu horeeya. sidoo kale waxaad value ku dari kartaa dhamaadka vector-kaada. sidoo kale waxaad ogaan kartaa number of elements-ka kugu jira vector-ka si fudud. waliba waxaad ogaan kartaa sidoo kale capacity-ga guud vector-kaada ay ka kooban tahay ama size-keeda guud. ma rabo inaan war idinku dheereeyo, asla aragna marka sida vector-ka loo isticmaalayo. ugu horeyn waxaa u baahan tahay maktabada vector-ka in aad soo gashato ama library-ga. sida caadiga waxaa leedahay hash include, kadib waxaad qoraysaa vector. sida waxaa ku haysataa maktabadii guud oo vector-ka. wixii hadda ka dambeeya markaad u baahan tahay inaad isticmaasho waxaad soo qaadanaysaa vector name-kii vector, kadib waxaa siinaysaa waxaa leedahay less than iyo greater than. kadib dhexdeeda waxaa ku qoraysaa type-ka aad rabto, nooca aad rabto, haddii double ay noqonayso, haddii string uu noqonayo, haddii integer ay noqonayso. tusaale ahaan oo kale anaga hadda waxaa ku daynaynaa integer. kadib waxaa qoraa vector name-ka ay qaadanayso. hadda waxaan kusoo gaabinaa v oo keliya, laakiin name-ka waxay noqon kartaa wixii adiga aad la jeclaato. markaas waxaad dhigi kartaa oo kale data any name aad rabto ayaad gelin kartaa, laakiin ana hadda waxaa ku daynaa v. kadib waxaad siin kartaa size-ka vector-kaada. size-kana waxaad ka dhigan kartaa wixii adiga markaas aad rabto, laakiin hadhow haddii aad u baahatay in vector-kaada haddii kaa buuxsanto sida videoga marka hore baan ku sheegay, value kale waa ku darsan kartaa. size-kii ayaa double uu ku sameysmaa si automatic ah. hadda waxaan ka dhigaa size-ka vector-ka waxaan ka dhigaa 3. sida array-do kale markaad u baahan tahay index-ka ugu horeeya in aad value siiso waxaad leedahay oo keliya at 0 value-ha aad rabto, tusaale ahaan oo kale 9. then waxaad leedahay value-ha labaad oo index-ka koowaad ah, waxaan dhahaa tusaale ahaan oo kale 8. waxaa ii soo haray kala labaad, asigana waxaan leeyahay tusaale ahaan oo kale 7. waa kan sida array-do kale waxay ka bilaabanaysaa index from 0 waxayna ku ekaanay last element-ga -1. waa kan 2. sida caadiga waa 3 1 2 3 waaye, laakiin index ahaan waxay noqonaysaa 0 1 iyo 2 sida array-da oo kale. markii aan rabo inaad soo print gareeyo sida caadiga ah waxaan sameynaa oo keliya vector, kadib index-ka aan rabo. tusaale ahaan oo kale waxaa leeyahay index 1 end line si aad u aragto end line. okay semicolon. then waxaan leeyahay run. waxaa aragtaa waa kaasa waxaa ii soo baxay numberka 8 oo ah index-kii aan rabay oo kan ah. meeshaan waxaa gelin kartaa oo kale haddaa rabto 0
markaan waxaa isoo baxaya number 9 sida arkayso waa kan waxaa isoo baxay number 9 okay hadda meeshaan oo kale haddii aan tago oo aan dhaho cout elementigeyga size aan dhaho okay v dot size okay meeshaan aan dhaho end line okay semicolon wuxuu isoo saari doonaa size-ka number of elementska aan haysto waa kan sidaa arkayso waa kan number of elementski waxaa waaye 3 waana sax waa kan 1 2 3 waaye numberka kale aan soo daawacayna wuxuu ahaa 9 oo aad indiki 0 ah okay good marka hadda u baahanahay numberka ugu horeeya inaan soo print garay maxaa ku qasbana anigoo 0gan hadda bedelkeeda waxaan dhihi karaa v dot front oo la mid ah in numberka ugu horeeya aan sidaa ku print garay waa kan waxaad arkaysaa in number 9 uu inoo soo baxay si caadi ah waxaa kaloo dhihi karaa meeshaan oo aan dhahay frontiga waxaa kaloo dhihi karaa sidoo kale back waxaan dhihi karaa cout v dot back backna wax kale maahan waa front cagsigeeda waxay soo saaraysaa last element oo vectorkeyga ku jira waxay soo saaraysaa the last elementiga oo vectorkeyga ku jira numberka ugu dambeeya waa 7 okay waa kana waa numberka ugu dambeeya waa 7 hadda marka meeshaan markii aan print gareeyo hadda waxaa rabaa inaan idin tuso sidoo kale waxaa jiro wax la dhahayo capacity capacitygaas wax kale uga duwana inta size leh okay intana xadaadaas space u dhaxaysii intana waxaan leeyahay marka capacity cout waxaan leeyahay capacity okay space then waxaa leeyahay feed up capacity okay waxaa arkaysaa hadda size-ka iyo capacity-ga in ay isku mid yihiin laakiin haddii meeshaan aan imaado oo aan dhaho v dot pushback aan dhaho value kale ku dar oo number 6 ah tusaale ahaan oo kale hadda pushbacktan waxay ka dhigan tahay indexka ugu dambeeya ayuu ku xigin doonaa 6 hadda tusaale ahaan oo kale kan ugu horeeya elementiga ugu horeeya waa 9 8 7 marka 6 wuxuu ka dambeyn doonaa 7 gadaasheeda ayuu geli doonaa hadda marka hore hadaayo markii aan back aan print garayo waxaa ii soo baxaya 7 laakiin hadda back marka aan print garayo waxaa ii soo bixi doona 6 sida arki doonto capacity-gana uu isbedeli doonaa waxaa idin sheegay marka hore size-ka inta uu ahaa ayuu double ku sameynaa hadda meeqa waaye 3 capacity wuxuu noqon doonaa 6 size-kana wuxuu noqon doonaa 4 marka waxaa arkaysaa in size iyo capacity uu difference jiraysan isku mid ahayn waa kan sidaa idin sheegaba 4 noqday kanna 6 ayuu noqday baagtan waxay noo soo daawacday numberka ugu dambeeya oo hadda aan geliyo oo 6 ah sidoo kale vectorkeena si dynamic ah ayuu value yani size-keeda uu isku bedelay marka hore size-ka wuxuu ahaa 3 haddana wuu isbedelay oo wuu weynaato waxay noqotay 6 sidaas oo kale haddii haddana 6 number ama 6 element aan ku daro oo aan number kale oo element kale oo 7 aan ku sii daro size-ka uu isbedelaa wuxuu noqonaa 6 ahayd double ayuu noqonaa wuxuu tagaa 12 marka sidaas ay factorka u shaqeysaa waana useful marka aad programka aad isticmaalayso areydana sidaa ayay kaga fiican tahay waxaan rajeynayaa insha Allah in
aad fahantay oo ka faa'iidaysatay cashirka boobsiis ayaan u sharxaya. Sidoo kale waxaan kasoo qaatay oo keliya waxyaabaha ugu muhiimsan functionska ugu muhiimsan ee isticmaasho vector. Marka waxaan rajeynayaa inaad fahantay. Waxaa kaloo ka tegay pop oo iyadana muhiim ah oo last elementiga remove garaynayso. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahantay. Kuwa kale practice garayn doonto sida pop oo kale, empty oo kale iyo insertion oo kale, ama waxaan uga hadli doonaa haduu Ilaahay yiraahdo cashirada kale ee soo socda. Inta cashirka xiga aan ka gaari doono waxaan idin leeyahay fi amanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.